xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay gudbiyeen hindisaha xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyaga oo madaxweynaha ku eedeeyay khiyaano qaran iyo inuu ku xadgudbay dastuurka qaran iyo sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. mooshinka ayay u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka oo isna ka gudoomay waxaana la geliyay hindisaha si xilka qaadista galka rasmiga ah ee baarlamaanka. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno sababta ay xildhibaanada mooshinkan xilka qaadista ay u gudbiyeen ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho aan ku wareystay xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xildhibaanada gudbiyay mooshinkaasi waxaana marka hore weydiiyay tirada ku saxan mooshinka. horta mooshinka maanta waxaan raacinaa raaci saxda ahaa ahayd waana laga gudoomay oo gudoomiyuhu ma gudoomin mar haddaysan tirada buuxin tirada waa la iska tiriyaa laakiin sababa amniga daraadeed ayaan rabnaa in tirada laga horsheego baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka ugu horeysa uu kulan yeesho. laakiin marka la fiiriyo xeer hoosaadka qodobadii iyo shuruudihii mooshin lagu gudbin lahaa waad marteen Soomaaliya waa idin dhameystirnaa dhamaantii waanu buuxinay shuruudaha waxa laga rabay in boqolkiiba yani saddex meelood marka loo qaybiyo hal meel in ayaa keeni karta soo jeedin halka meelna waxay noqonaysaa ilaa 29 marka waanu tiro ka badan baan waaya maxaad ku saleyseen marka eedaha aad madaxweynaha u jeedinaysaan eedaha walaal waxa ugu weynaa madaxweynuhu soo galay heshiisyo khatar gelinaya jiritaanka iyo madax banaanida qaranimada Soomaaliyeed heshiisyada uu diiday isagu inuu nala wadaago oo xogta meesha ku tahaadan uu nala wadaago laakiin sida ay sheegeen madaxdii kale kala qayb gashay shirarkaasi heshiisyadaasi waxay daahan yihiin in la mideeyo gobolka haddana anagu waxaan u aragnaa in khatar badan oo jiritaaneed oo siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulshada ay ugu jirto ummadda Soomaaliyeed inay heshiis noocaas oo kale ay gasho oo jiritaankeena meesha ka bixi kara. marka eedahaas aad sheegaysaan soo uma eka wararkii horey u jiray oo kaliya ee suuqa yilay laakiin aadan wax cadayna aadan haynin oo dukumeenti ah oo la taaban karo oo heshiisyadaasi ma haysan taas walaal waxay u taalaa anagu marka heshiisyada maanaan soo gelin heshiisyada waxaa gala madaxweynaha waa waajib madaxweynaha saaran heshiisyadu waxay ahaayeen inuu baarlamaanka keeno haddana baarlamaanka waxaanu ka talbanay mar iyo 2 iyo 3 inuu heshiisyada hor keeno baarlamaanka waxa ugu dambeysay mooshin aan ka qornay xiriirada dawladda lala sameeyo heshiisyada la soo galo oo madaxweynaha iyo xukuumadda ay si toos u hor istaageen iyagoo isticmaalaya maxaa la yiraahdaa pressure xagga baarlamaanka in ummadda Soomaaliyeed la wadaago arrimaha laga doodo baarlamaanka laga doodo marka taasi waa mid kamid ah waxyaalaha ku eedeynayno oo aanu rabno shaqooyin baan iga jira in jiritaanka ummadda Soomaaliyeed meesha ka bixi kara laakiin xildhibaan marka laga yimaado shakiga ah in heshiisyo la soo galay hadiiba madaxweynihii iyo dawladdii aanay wax heshiis idin keenin adinkuna wax cadayna gacanta aadan ku haynin soo warar ku tiro oo heshiis baa la galay kaliya kuma eka maya ku tiro ma noqonayso marka madaxweynihiina uu diiday inuu heshiisyada nala wadaago madaxdii kale kala qayb gashay ay heshiisyadii ogolaadeen ay shacabkooda la wadaageen oo ay idaacadaha uga sheegeen in la midayn doono gobolka waxa kale oo iyana u baahan in laga fiirsado heshiisyada dekedaha ee lala gelayo wadamada dariska ah dhaqaale iyo mid siyaasadeed soona ma u aragna waqtigan inay munaasib tahay lala galo dalalka jaarkii lala gelayo siiba marka ciidamadooda ay nala joogaan heshiiska aad la gasheen noocaas oo kale ciidanka dalkale uu kula joogo si dhib yar baa ay jiritaankaagu meesha uga baxi karaa annexationka waxa ingiriiska lagu yidhahda ama qabsasho ay u dhici kartaa marka anagu waxaan u aragnaa khatartaasi inay khatar madaxweynuhu ka bareerayatay taa waxaa weheliya oo kaba sii daranba madaxweynuhu si joogtaa ugu tuntaa shuruucda dalka u yaala oo u baalmaraa waxaa ka mid a sida yani uu maxkamadii sare ee dalku ay lahayd uu madax banaanidii maxkamadda meesha uga saaray uu u eeyey isagoo aan marin dariiq sharci oo saxa gudoomiyihii maxkamadda sare ee dalka marka isku milanka hay-adaha ayaa bays u ah labaad mooshinka aanu keenay hay-adaha sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka ay isku milmaan haddana way isku milmaan waana waajib dastuuri waayahay xildhibaan Cabdifataaxow haddii aan ka dhex galo halkaasi gudoomiyaha maxkamadda aad sheegtay in la eriyay xilka qaadistiisu way horeysay maxaa keenay waqtigan inaad mooshinkan soo diyaarisaan maxaa ku soo beegay xilligan oo dalku xilli xasaasi uu marayo doorasho maamul goboleedyo oo 2 gobol oo muhiim ah ay dhacayso laga yaabo khilaafaad hore inay jiraan oo haatan laga soo kabanayay in aad waqtigan soo gudbisaan mooshin maxaa keenay isleedahay
horta wuxuu way soo biirsanayeen qodobada hal mar lama yani qodobada aan soo cuskanayna waxyaalaha loo cuskanayo xilka qaadistu waxaan qodobooyin isu soo taraya marka Soomaalidu waxay ku mahmaadaan kaadi badan waa loo gogol badiyaa marka anagu waxaanu muujinay dulqaad siyaasadeed oo 2 sanadood aanu muujinay dulqaad ah madaxweynuhu meesha ugu biyashubto hal eego waxay noo ahaan lahayd meel ka dhaxday ahaan lahayd hadii marka ugu horeysay madaxweynuhu qalad galaba aanu mooshin ka keeno marka waxaan siinay waqti ku filan oo wax ku sixi karo laakiin waxay u muuqataa madaxweynuhu inaan dan kala hayn inuu wax saxo uu rabo dalka inuu dib ugu celiyo nooc dictatorship oo keligii laga amar qaato hay'adihii kale sharciga ku fadhiyay kamid ahayd sharci iyo garsoorka uu meesha ka saaro waayahay haddii aad madaxweynaha ridaan cawaaqibka ka dhalan kara intee la eg yahay xildhibaan waxba ka dhalan maayaan xasan sheekh waanu si sharciga talada dalka looga qaaday sheekh shariif baa si sharciga talada dalka u wareejiyey waa nidaam dimuqraadi oo Soomaalidu ay ahayd dalalkii Afrika bilaabay oo aadan xad u ahaa madaxweynuhu ugu horeeyay si sharciga talada ugu wareejiyay madaxweyne kale marka waxa weeye laakiin taasi doorasho ay ahayd doorasho waqtigeedii dhamaaday ayaa xilka looga qaaday laakiin madaxweynihii oo xilligiisii uusan dhamaanin hadii xafiiskii laga qaado oo aad impeachment ama aad xilka qaadis ku sameeysan soo uma eka in fawdo iyo jaantaaro dalku galayo ما دستورك wuxuu tilmaamayaa si cad oo madaxweynaha looga keeni karo impeachment ama xilka qaadis annaguna waxa aan kaliya raacaynay dastuurka waxaanu rabnaa in si dastuuriga marka madaxweynuhu uu khatarta ugu weyn dalka ku wajahanay madaxweynaha talada hay'adahay waajib dastuuriga baa naga saaran inaan ummadda Soomaaliyeed ka badbaadino in khatar dalkooda iyo dekedahooda iyo diintooda iyo sharaftooda ay galaan kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo qadka telefoonka magaalada Muqdisho igu waramayay wixii warar ee ku soo kordha umuurtaanina waxa aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda